wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Nuur Jaamac oo qoraal kooban soo saaray ayaa ka hadlay imaatinka hubka ka imaaday dalka Masar oo si toos ah u soo cagadhigtay gudaha Soomaaliya xilli ay taagan tahay xiisad culus oo u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo ka dhalatay heshiiskii badda ee ay wada gaareen Somaliland iyo Addis Ababa. wasiir Jaamac ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay tahay dal xor ah isla markaana aan cid kale aysan u daba fariisan doonin arrimaha u gaarka ah Soomaaliya. sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in dalka ay doonto ay la macaamilayso Soomaaliya ayna ka soo gudubtay marxaladii wax loo meerin jiray waa sida hadalka uu dhigay. Soomaaliya waxa ay ka gudubtay marxaladii la dhihi jiray cidda aad la macaamilaysaan waa inaan anagu raali ka nahay. sidaasi waxa uu ku yiri qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook-ga. waxa kale uu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka Soomaaliya ay iyadu leedahay go'aanada xulashada dadka ay la macaamilayso. Masarna ay ka mid tahay dalalka iyadoo ay dooratay sidaasina ay ku timid Soomaaliya. danteena annaga ayaa naqaana sokeeye iyo shisheeye annaga kala xulanayna gobonnimo. sidaasi waxaa yiri wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo xalay dekedda magaalada Muqdisho uu soo gaaray markab siday hub culus oo ka yimid dalkaasi Masar kaasi oo baabuur waaweyn looga soo daaburay gudaha dekedda magaalada Muqdisho waxaana la geeyay wasaaradda gaashaandhigga iyo waliba meelaha kale ee lagu kaydiyo hubka dowladda Soomaaliya. tallaabadani ayaa sii horinaysa xiisadda ka taagan gobolka Geeska Afrika iyada oo haatan laga digayo in Soomaaliya ay ku dagaalamaan dowladaha Itoobiya iyo Masar. haddaba daawade adigana bal ra'yigaaga nagula wada qaybta commentiga oo aragtidaada noogu qorfaalada. haddii aad ku cusub tahay barahayaga bulshadana nagu soo biir oo follow noo Facebook-ga, YouTube-kana subscribe noo saar. mahadsanidin.